يحيى دوغلو وزركي هلاي إذا مبوحو يواجيكا صوغو بنارورتي سريا بورا عايشي واحد كل جليعان كجسواهايون وجعليكا هيا مهلي محمد مير الباتوكتان سلامة 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 بعد السلام اسكرال نقطة ما انت عود كيك حبيبات شقة وحقوري هرقب أما دوري كأتقان هيا halkaan nooga soo duceeya salaan kadib waxa u baahnaa maanta inaan jawaabo habra xun oo TikTok liigu soo mooshi kareynay waxay yihiin aan aqoon ay noo leeyihiin aanay jirin niyo antarba taqnimadii ataa taqnimada intay ka badatay dadka islaamida ku meeraysanaysan iska dhaaf dadka aanan isku safaaradaha hayreed safaaradaha isku gelinaysaan iska dhaaf waxaanad ka sheekeynaysan anigu ma arag malaa dadka ka sheekeynaysan isleedahay farxiyo fiska balwada ayaa sidan u gashay oo waad kala garan laadahay ma isleedahay maya balwad ma ahan gabadheena balwad kama muuqato gabadheena aad way caatooday way isbedeshay soo ninka u ekaato horta kow gabadheena way xanuunsan tahay gabadheena amba sixir amba wax kala haysta amba cuduro ninkan ku daartaba ha ahaatee gabadheena horta ninkan uma qalmo mana ogolin shala markii ay la soo shirtagaysan umaana ogoleen ma fahante marka gabadheena ilaahay ha noo soo celiyo suldaan gabadheena waa qayirantay ayad dhan waxay way caruurteeda hilmaamtay reerkeeda hilmaamtay hadda sabab taliso lama odhanaya godob baad ka galaysin gabooye oo aad uga cadhoonaya hadalkan aad leedihiin wiilkii iyadoo ay tiri waan ku faraxsanahay ninkuna aad tirahdeen muqdisho hadday timaado wiilka waa la gubayaa sababtaa gabooye ma xasuusanayaan oo iyaguna ma bilaabayaan aarsi ma bilaabayaan inay hablaha iyaguna adeete ay intay guursadaan haddana ay ku ciyaaraan ay furaan ma bilaabayaan sidaa haddii sidan lagu socdo oo gabadha qasab lagaga furo wiilka guursataba suldaan ha u tagto gabadha guursataba ha la arko anku ibshoka maharine xagge hayboka halaysa yaabkay waan kaga maanta dhacay mugtay in arrinkii guurkii farxiyo fiska laga dhigay dawladda oo la yiri dawladda Soomaaliland baa siyaasadaysi waxa u jeedaa hawiyaha waa siyaasad laga dhigay goorma farxiyo guurkeedu uu siyaasad noqday farxiyo soo halkan ilin iska deganeeyay maaha de farxiyo fiska ah de goorma de ay dawladda siyaasadii guurkeedu waxa galay nin iyo naag intay iskuursanayeen oo isjeclaado maxay tahay calfiisu galay ayaa maxay tahay ka daba niqniqlay mawaalinta maxay idin dhiman ayuu guys crazy ninka iyo naagtu markay iskuursadaan way soo ekaadaan ma ninka araggiisa iyo age-kiisa dee ilaa waa inay yar ma ka hadlaysaan oo ka dacwoonaysaan haa taasi waa gaar laakiin ha odhanina waxbaa la siyaasadeeyey iyo waxbaa caynkan balaaya idinku dhacday dee hadalka naga hagaajiyo wadiisa maxaa idin dhibo farxiyo ka wayr hadday ka hadasheen xaq bay u leedahay dawayna adeerteed يحيى دوغلو وزركي هلاي إذا مبوحو يواجيكا صوغو بنارورتي سريا بورا عايشي واحد كل جليعان كجسواهايون وجعليكا هيا فضل نو صار سبسكرايب على خير كوسو وحده دقائق ku farxday كوسو كوسو birxa qsoor si fiican wararkii ugu dambeeyay hadda soo dhacay iyo ka dibagana xisaab halka ku aragto waa nashad oo shawaab qurur soo siisay mubaarak October iyo waxa weeye farxiyo fiska oo sheegtay waxa weeye in aanay weligoodba waxa weeye meel ay isku guursadeen aanay jirin walaasheen oo xanaaqsan ayaa waxa weeye codku ku dhigayba inantii nashad oo waxa weeye ku sugan Muqdisho ayaa dadku yiraahdeen waxaaba ay soo qabeen oo soo guursadeen mubaarak October warkan la yaab kale maxaad ka ogtahay horta waxa la soo xiray
muuqaalo la yaab leh oo aan halkan lagu soo baahin karin qaarkood inantii nashmanashaad ahayd oo aada uga xanaaqday inay arrintani been abuur tahay kuna tilmaamtay mid sarbeeba oo sheegtay in waxa weeyaan sida iyadu sheegayso arrimaheeda laga baxo aan dadka laisku soo xuqxuqin ugu dambeyn waa adiga arkay jawaabta maldahan ee ay soo dhiibtay waxa weeye nashmanashaad oo tiri aniga xeradayda weligeeba ma soo gelin qofkanaa sheegaysaan mana aqaano ee waxa weeyaan ha igu soo dhedhashinina wiilkaa yar ee dhalinyarada ah aan kaa dabageeya sidaad halkaa ku aragto waa 3 fanaanadood oo muuqaaladooda lasoo helay oo uu heesa la soo qaaday mubaarak October oo hadda ah waxa weeye fanaanka guursaday fanaanada caanka ee Farxiyo Fiska waadiga arkaya waxa weeyaan Shaadiya Sharaf waxa weeye Saadiya Siman waxa weeye Naydareen Nuurus warkii horeba warsoo dhaaf waa fanaan da'yar oo qarsoonaa oo fanaaniin caan ah oo Soomaaliyeed heesa ay wada qaadayaan dabka ay soo saareen boorkana ka soo shafay ugu dambeyn qofkii markuu heestii arko qof kasta wuxuu oranayaa way soo guursadeen oo ma 4 fanaanadood markaa soo guursaday mubaarak October ma Saadiya Siman buu soo guursaday ma Shaadiya Sharaf buu soo guursaday ma Nashmanashaad buu soo guursaday ma Naydareen Nuurus buu soo guursaday warkan la yaab kale waa warar aan sad iyo raad lahayn balse walaalkeen mubaarak October ma ogin qofka xaaskiisa soo ahaan jirtay dad badanna way ku wareereen wiilkan yar ee fanaaniinta heesaha la soo qaaday ee aan la ogeyn ee hadda lagu bartay Farxiyo Fiska balse wuxuu ahaa fanaan yar oo da'yar oo qarsoonaa oo inagu isagoo dhalinyaro ah inuu fanka ku soo biray 2019 balse fanaaniintan oo heeso waliba la soo qaaday qaarkood ay ku heesayaan xeebta liido ayaa hadda la soo helay muuqaaladooda sidaad halkaa ku aragto waa fanaanka caanka ee Sultaan Seeraar oo baaq nabadeed soo diray Sultaan Seeraar ayaa soo wada hees la magac baxday xaalka waxa weeyaan ay marayaan dhacdooyinka xanuunka badan gabdhaha Soomaaliyeed la dulmiyay kufsigana loo geystay ee lagu baahiyay baraha bulshada Soomaaliyeed waxaan codar ku muujinaynaa haddaan nahay dhalinyarta Soomaaliyeed inaan garab taaganahay hil iyo hoona aan la garab taaganahay hablaheena Soomaaliyeed ee sida foosho xun loola dhaqmayo iyagoo da'yar kufsiyada baan loo geysanayo qaarra sawirada ama fiidiyowyada xun laga baahinayo ma geeyaan hablaheena Soomaaliyeed xumaan una qoori mayno waana garab taaganahay mar walba hablaheena Soomaaliyeed wayna dhaleen waan dhalay wayna la dhasheen wayna dhaxeen waana dhali doonaa fadlan aan joojino xumaanta aan ka baahinayna hablaheena Soomaaliyeed waa hablaheeni waa sharafteeni waana hugeeni heesta uu soo wado midhaheeda qayb ka mid ah oo aan la baahin karin ayaa sidan oo kala ah raggii hablaha xumaysteen xaal waa inay siisaan oo heesta dabka soo saaran ay soo bixi doonta maalmaha foodka inuu soo hayo balse Sultaan Seeraar ayaa sheegay inuu cod dheer ku baahinayo oo uu isku garab taagayo gabdhaha Soomaaliyeed sida xun loo xumeeyay ee aan waxa weeyaan cadaalad helin haddii aan dib ugu noqono gabdho badan oo la qubsaday ayaan weli cadaalad helin waxaana ka mid ah fahma fiicanay oo wiil yar oo dhalinyaro ah oo deegaanada Itoobiya ku sugan oo waxa weeye kursi u geystay waxa weeye muuqaal xun ka duubay walaalkeen ayaa waxa weeye deegaanadaas ku dhuumaalaysanaya sidaan ku hayno warbixin xaqiiqooyin dhab ku saleysan oo aan soo helnay sidoo kale gabadha yareeda dhalinyarada ahayd walaal waxa weeye raggii kubsaday qaarkood waxa weeye waa la sii daayay sida wararka lagu helay oo waxa la yiri odayaashii ayaaba is afkartay xaalna sidaas lagu bixiyay gabadhii sideen ogeyn loo galay dhalinyarada ahayd muuna iimaan ka dhaweed muuqaalada laga duubay cadaalad ma helin cadaalad war aan helay ama sideen ognahayba ama sida dad badan oo waxa weeyaan dhuun daloolayaal u ah wararka hoose ay yihiin waa xaqiiqda dhabta ah ee ah in reerihii waxa weeye inamadaas ay ka soo sheedeen iyo gabadhu ay wada fadhiisteen odayaal oo waxa weeyaan sidaana lacag lagu kala qaatay lana ballamay in waxa weeyaan ilmihii yaraa ay la baahiyay muuqaalkeedan arkaynay in maanta aanay sida cadaalad ku helin ugu dambeyn Sultaan Seeraar ayaa fanaankii ugu horreeyay ee ka soo hadla gabdhaha sidan oo kale baraha bulshada loogu bahdelay Farxiyo kaba yara ayaa iyaduna ku xigtay inkastoo ay maalmo dhexdaas ahayd balse Sultaan Seeraar ayaa sheegay inuu hees u soo qaadi doono la magac baxday hablaha xumaysteen waa inaydun siisaan xaal
dhacdada murugta badan ee ku baahday baraha bulshada wararka ayaa kale farqayn doona waxaan ku leeyahay bilow ilaa dhamaad ila soco sida halka ku aragto waa shawaabta maldahan ee soo dhibtay nashaad oo aad uga xumaatay in lagu soo dhadhashiyay waxa weeye Mubarak October oo ay dadku yiraahdeen way soo guursadeen balse meenu arag meel isku guursadeen fanaaniintan oo heesa wada qaadaya ayuun baa la soo helay balse qofku hadduu hees la soo qaadaba horta ta ugu la yaabka badan ayaa ah nashaad haddii nin la gasho sawir sheekadu waxa weeyaaba meher baa dhex marayba waa intii ay kala tageen waxa weeyaan walaal ninkeedii hore ugu dambayn wadiga arkaa qof kastoo hadda ay wax la soo gasho ama muuqaal la soo qubto dadkuba waxa weeye way ku hoobanayaan markaa muuqaal yaroo la helay oo waxa weeye ay wada heesayaan fanaanka caanka ah Mubarak October ayaa dadku yiraahdeen way isguursadeen wadiga arkay iyadoo codku ku dhigay oo xabeebsan in waxa weeyaan ayaa uga xumaatay been abuurka lala daba socdo iyadoo sheegtay in aanay iyadoo raalina ka ahayn in sidan oo kale loo soo dulmiyo ugu dambayn warka la yaabka leh ee aan ku hayo muxuu yahay Farxija Fiska oo reer Hargeysa hoo iyo hiilba isla garab taageen iyagoo sheegay inay tuurta ku qaadan doonaan wax kastoo dhacana waxa weeyaan ay mar walba hiil leh garab taagan yihiin waa la maamusay meelo badan ayaa la soo mariyay xataa burca la geeyay waa la soo dalxiisiyay sidaas loo soo damaashaasiyay waxa lagu yiri tan ka maqaltan ka sii daa waxa ka socda baraha bulshada waxaan kula ka mid ah